channelka Daro News waaye gabadhiina waaye kusoo dhawaada YouTube-kana inaan kicisaan aan u baahanahay barnaamijkii la tali waa codsiga batay talada badatay marka waxaan hayaa marka gabadhi dhahayso abaayo waxaan dareemaa hurdo fara badan iyo caajis fara badan markuu seygayga ii baahan yahay maasha Allah hurdo fara badan iyo caajis badan ayaan dareemaa tiri markuu seygayga ii baahan yahay marka maxaan sameeyaa tiri marka hurdadaasi caajiskaas maxaa keenayo ama waxay tiri maxaa igu sababayo ama maxaan sameeyaa hurdada caajiska iskaga kiciya laba mid hurdii caajis fara badan hadii aad dareemayso xiisiya ayaa dhamaa karo qofkaas xiisiya aad u haysay ayaa loo ah waxaad sameyn kartaa oo kugu fudud qofkaas inaad mar labaad barato mar labaad sidee u baran kartaa mar labaad waxaad u baran kartaa number cusub aad qaadani number cusub markaa qaato telefoonkaaga gashani adiga seygaaga shukaansanaysaa seygaaga la sheekaysan iskuma sheegaysid inaa adiga tahay waad la sheekaysan waa run waa qalad waa khiyaano laakiin khiyaano ma ahan waa garasho waxaa rabtaa inaad caajiska iyo culeyska kaa saaray seygaaga inaad ka kacdo haddii rabto inaad ka kacdo nolosha waa inaad cusub ka dhigtaa nolosha sidee cusub uga dhigi kartaa laba mid aad kuu fudud labada mid waxaa waaye inaad numberka bedelato oo seygaaga aad qof cusub iskaga dhigto aad shukaansato iyo inaad dalxiis aadaan magaalada ka tagtaan oo aad safartaan oo aad jawiga bedelataan ama adiga inaad ka tagto xagga hooyo aado xagga qaraabada salaam u tagto xagga qaraabadiisa aad salaam u tagto xoogaa dhowr maalmood aad ka maqnaato labadaas mid aad kuu furan labadaas mid marka mideebaa fudud midaan qaraabadiisa la aadayo haddii qaraabadiisa aad ku fiican tihiin sadohdaada gabdhaha walaalihiisa wiilasha haddaad isku fiican tihiin taasaa kuu fudud laakiin hadaysan taas kuu fiicneen aysan kuu fududeyn aad arkaysa inaad familigiisa aadan u dhaweyn midda kugu fudud waxaa waaye inaad number cusub qaadato dhowr gabdhood oo saas sameeyeen waan arkay number cusub ay qaateen seygooday mar labaad shukaansadeen iskuma sheegaysa inaad adiga tahay mar labaad aad shukaansani waad la sheekaysani ha dareemin inuu ku khiyaanayo adiga niyadaada ha gelinin inii aad naag cusub iskaga dhigtay oo haddii maanta naag kale shukaansanays ugu hadallada uu ku dhahay adi isku dareysii inaad adiga tahay shaki ha ka shakina seygaaga haddii shaki uu bilaamado dagaal iyo furiin iyo qayliyo buuqa bilaamada naag kale la shukaansatay ha isdareensiinitaa waxaa isdareensiisaa inaad rabto caajiska iyo culeyska kaa saaray seygaaga inaad ka baxdo soo waxaad sameynaysaa number cusub aad qaadani telefoonkaaga gelinaysaa numberkiisa ku soo garayni waad la sheekaysani caadi qof cusub oo la sheekaysanaad iska dhigaysaa guriga marka la imaadan waxaad imaan marka numberka markaad save garaysato waad la sheekaysani waad la hadli markaad guriga imaadan waxaad u imaanaysaa adigoo faraxsan sababta si wuxuu kuula hadlay naxariis ah si sharaf loo kuu soo dhaweeyay si nolol fiican uu kuula hadlay wax fiican uu ku dhahay yaani waxaad imaanaysaa adigoon caajis goynin oo maanta qof bartay sababta tahay raggeena Soomaalidu lama sheekaystaan gabdhahooda xaasaskooda intay fadhiistaan oo maanta maxaa kugu soo kordhay maxaa maanta qabatay noloshaada ka waran iyo waxba kama wareystaan soo adiga la rabaa marka inaad barto oo adna is barto hadaa ka dareento caajisku waxa keeno communicationka wada hadalka yaani wada hadal ma jiro dhexdiina wada hadal ma jiro sababta labada qof oo nolosha wadaagayso oo waa labadiina hadiina wada hadlaynin oo guriga soo galay shaqo ka imaanay cunto u diyaarinaysa maxaa hadii aad cunto aad u diyaarinayso dhar u dhaqayso oo subaxii aad u kacayso hadii taas ay tahay shaqaalu qoran lahaa Soomaha gabar baaba shaqaalo u qoran lahaa lacag siin lahaa shaqaaluhu anagoo wada shaqaala ah qof walba shaqaala ah sababta qof walba kan xitaa reerkiis u shaqeynaa waa shaqaalo anagoo dhan shaqaala ah marka shaqaalu qoran lahaa oo lacag u baahan oo reerkeeda lacag siin lahayd adiga wuxuu kaaga soo watay inuu wehel ku noqdo adna aad wehel u noqoto shaqada markuu ka imaado waa inuu adiga time ku siiyaa adigana waa asagina time siisaa ubada imaado ubadka imaadeen caajis iyo waxa imaanaya xoogaa is afgarsho waxaas dhan timetable jadwal ayaa loo sameystaa marka caajiska markuu xakeenayo iyo culeyska uu seygaaga ka caajisayso communicationku wada hadalka adiga iyo ninkaaga ah
sababta haddiina wada hadlaynin haddii caajis wuu imaanaya waa inaad kaftantaan, waa inaad sheekaysataan, waa inaad wada hadashaan, waa inaad dalxiistaan, waa inaad marmarka qaarkood waxaa jirto family meeting wax la dhahaayo, waa inaad hooyada u yeeri karto, aabaha u yeeri karto, gabdhihii la wada qadeynaayo, asaga uu fadhiyo, la wada shaayeynayo, la kaftamaayo, waxyaalahaas ayaa jirto. marka communicationku waa waxaa sameynaysaa marka baayo communicationku wada hadalka ninka aaga ku dadaalkaas hadaad samayso caajis iyo waxaan dhow kaa kacaya, shaydaankan ku saaran dhow kaa kacaya. midda aan kuu sheegay waa 2 inaad ehelkiis aad booqato oo asaga aad ka tagto aad aad fasaxaan rabaa, iyo inaad number cusub qaadato saygaaga ama labadaas shukaansato, labadaasaan ku dhihi lahaa. halkaasaan uga baxay.